salaan kadib waxaan idinku soo dhawaynaynaa dalkiina hooyo magaalada caasimadda ah ee Soomaaliya Muqdisho airportkeeda Aadan Cadde International Airport mudanayaal waxaan isugu hambalyeeynaa guushii taariikhiga ahayd ee aad ka soo hoyseen dacwadii badda ee u dhaxaysay dalka Kenya iyo Soomaaliya mudanayaal waxaa jiri doona haddii aan la idmo hambalyo weyn iyo mahadnaq weyn oo bulshada Soomaaliyeed oo dhan ama in badan oo ka mid ah bulshada aan iraahdo ay meel fagaaraha isugu soo bixi doonaan leesuna hambalyo dooro guushaas taariikhiga ah ee u soo hoyatay dalka Soomaaliya Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo hogaaminayay wafdiga Soomaaliya ayaa ka hadlay guusha ay Soomaaliya kala soo hoyatay dacwadda badda guul baynu joognaa maanta waxaynu joognaa goor Soomaaliya ay leedahay bad xadkeedu cad yahay jeexan yahay sharciga caalamiga ah lagu sugay aynu guulaysanay taariikhi ah ay tahay inaynu ku faraadayno guushaasi waa guul dhammaan shacbiga Soomaaliyeed u soo hoyatay dawladda Soomaaliya u soo hoyatay xukuumad iyo shacabba u soo hoyatay waxaan u mahad celinayaa dhammaan mas'uuliyiintii Soomaaliyeed iyo shacabweynihii Soomaaliyeed ee kaalinta firfircoon ka qaatay ee ka shaqeeyay ee habeen iyo dharaar u soo jeeday in kiiskaas badda ama dacwadda badda ee innaga iyo Kenya inaga dhaxaysa ay ku soo dhamaato xukun cadaalad ah oo cadaalad ku dhisan oo xaq ah waa xaq aynu lahayn oo aynu soo dhacsannay oo inoo soo noqday maanta uu cad yahay xuduud biyeedka aynu Kenya la leenahay halka uu gaarsiisan yahay Soomaaliya way guulaysatay saddexda heer ee baddu tahaybana Soomaaliya ayaa ku guulaysatay doodihii iyo dacwadii maxkamadda caalamiga ah haddaad u daba gasho tallaabo mar walba waxa la qaaday doodii Soomaaliya waxaana la buriyay oo wax makama jiraan laga soo qaaday lagana dhigay doodii Kenya ay ku doodaysay kusoo dhawaada Som TV Soomaaliya fadlan taageeradiina waxay noo tahay dhiirigelin subscribe saar kanaalka share garay like saar videoga mahadsanid